وإسلام ساتم قاركي بان ويجي دون حويان أبين كجمليجا برشلونة أي أفر جول إلى بجول كوبا دي سرنتي طبعا دخور وبرش جول بالغو باللعبي dad badan way soo gelis waxa la ri war muxuu yahay difaacan tacbaanka ah dad badan waxay leeyihiin difaacan liita Barcelona kuma qaadi karaan Jabligo inkastoo aan arkay maanta baldi mar inuu lahaa goolkan weyn waxa weeyaan ku guuleysan Jabligo si ka buu lahaa inaan top 8 helno all the way koobka ku guuleysan laakiin dad badan waxay qabaan Barcelona difaacan liita Jabligo kuma qaadi karaan waxay Barcelona iminku u tahay 10 ciyaar isku xigta oo Jabligo laga dhan lahay waa markii ugu horeysay ever in markii ugu horeysay ever ugu mataqana waa difaaci ugu tacbaan sana Barcelona ever taariikhda weeyaan weligeed ma dhicin Barcelona 10 kulan isku xigta inay shabaqeedu mar kastaba la gaaro oo kul walba 10 ciyaarood isku xiga gool laga dhaliyo weligeed ma dhicin tan waxay ku cadeynaysaa marka inay nimankan difaacu bol iyo tacbaan ka yihiin waliba waxa ka yaabinaya kooxda gool ku bilowday Barcelona waa Slavia wax gool kama dhalin tartankan ilaa ay kulankii ugu horeeyay mooyaan Jabligo maalmahan dhanba gool ma nu gaarin يا وحنا تاس كاغا سي درن المهن صدن اسغال مالمود wax barooni ma ciyaarin qof kafiri markuu barooni ciyaaray kula dagaalami kara koox soddon iyo sagaal maalmood oo la soo dhaafay barooni aan riixin jadwalkooda barooni macnaa waa istaagay wax jadwal barooni maanu lahayn gure iska fadhiya almintooda yaraanaysa ciyaaro badan tijaabo ma haystaan waa kooxda soddon iyo sagaal maalmood kulan weyn caalamiya aanu ciyaarin ayaa inay Barcelona kaga hormartay dad badan shako abuurtay marka waxweeyaan bil iyo biyo ka badan weeyaan in habeenka nimankaas ay gool ku bilaabaan laakiin waxa lagu baxsaday Fermin Lopez oo Ken Egishiri oo 2 gool ciyaarta u dhaliyay Barcelona inankan waxweeyaan waa ajaa'ib 7 gool ayuu Barcelona si 6 ciyaaro Jabligo season kan Fermin ciidamadiisa lama haysan karo intuu bareejay uu ku daray gool laakiin waxa ka yaabay Longolos wuxuu arkay oo ciyaartii aan gool iska dhalinaya goolkaas wuxuu ahaa Robert Lewandowski iska dhalinay runtii goolkii ugu horeeyay siisa kan uu Jabligo ka dhalinayo wuxuuna ka dhaliyay isla kooxda Barcelona buu ka dhaliyay ilaa markii dambe uu dhaliyay goolkii ugu horeeyay uu Barcelona isna u dhalinayo runtii oo taas bay ahayd runtii kadib Olmo bedel ku soo galay lagu bedelay Pedri ayaa gool ku daray banaan ka tumay Olmo marka hore waxaad leedahay waa yar caajisan yahay xogaa si u jabiyay yahay si buu macnaha yaani u adadkeen baas leedahay laakiin banaanka garaacaya Olmo form ku soo laabtay ayaantan Lewandowski maana ku daray goolka 4 gool bay cidi ku badiyeen Barcelona ma jirtay iminka koox season kan kaga comeback badan tartamada oo idil 5 tirool weyn qaarada Yurub horyaalada weyn marka la soo fiiriyo Premier League Talyaaniga Jarmalo Faransiiso waxaan markaad soo marto ma jirto koox nimankan ka comeback waa kooxda kaliya inkastoo habeenada qaar la isugu jiidi karo يعني oo laga badin karo oo comeback dhahaya laakiin Barcelona kuwaal waxay ku asdii kartaa waa kooxda way ka iman kartaa goolash leedahay weeyaan season tan waxay habeenka ka dhigneed runtii Barcelona in ay ciyaartan u ahayd ciyaar kale oo ay comeback sameeyeen balfiir season kanu 8 comeback ay sameeyeen taasna wata ol markuu soo galay buu goolka hore ka dhaliyay runtii marka ajaa'ib buu ahaa goolka ka fantastic ah laakiin Barcelona waxay maqlaysaa iyagu waxay aad u bushirayaan Barcelona marka khataati inay galaan bay diidayaan top 8 bay rabaan inay ku soo baxaan khataatada waxay diidayaan nag out iyo afaari inay galaan laakiin Pedri baa dhaawacmay tababaru Barcelona wuxuu ya akhay micna wuxuu ka xanaaq ma taqaana hoob aragti dhaawacan 9 ka dhaawac lagu jiraa isbitaalay waa daacadi aad u jilcan yahay ninka kan 9 ka isbitaal wariya Barcelona waxa weeyaan sanadkan ma aqaano توبرو فير إيموشي كيس فيري دتك برشلونة وحرس ليهن معناها بدري محل غير وجل عيا ويل كينا حيتا ويل ما حيتا ولاد كين أسود أنا جبير أي وحورة مال ودا أنكبحين ودا كبحيو ما لد ما حصل إمس مرادين عنو قام ما دواع ميدونين يعني بنوني وحبايا لا اسكسي اسكفضي في الري اسكفضي لو مر دكسي جيت ديب لكن وحورة ودين وكبحيو أسو عساس اسك جبير oo ma taqaana qofkii ku yimaada buu jijibin karo ayuu wuxuu raayno meel aan wada ka bixiyo taas baan laga dhaxlayaa tababar Barcelona xanaaqay waa shoogiyay kulay dhaawiciisu wuxuu ma taqaana waxana 3 qayb ayaa loo kala qaadaa dhaawaca ninkan soo gaaray waa grade 1 iyo grade 2 iyo 3 hadii dhaawiciisu uu darnaanin hal ama laba isbuuc uu ku soo nasanaya laakiin haduu dhaawiciisa grade 2 uu noqdo wuxuu garoomada ka maqnaanaya ku dhawaad hal bil 3 ilaa 6 isbuuc taasna ma laga kaco xilligan bil iyo qofa maqan dabaysha ku qaadayso grade 3 waa kan ugu daran nasiibkiisa duu ka badbaado kaas waa 2 bil ilaa 3 bilood garoomada ugu maqnaan doona marka waa arki doona wax laga yiraahdo laakiin tababaru Barcelona
ma ku farxin dhaawaca Bedri soo gaarayo canuga yari daacadii cisbitaal baan kaga yaabay anu cunugan wuxuu igala mid yahay liiska ciyaarada dhahayo wariyaki Brian wuu ciyaarayay ya okiyaan badacmin ayantan wala kama dhaacmi doona goortu dhaacmi laha mar foga ayaan daadaa dadku aan u faham yani dareemayo in cisbitaaliyiin oo biri cisbitaalkay ku laabanayaan ya marka waa ka kulay ninka Rashford waa shaqulay waa soo galay asaga goolka Lewandowski caawiyay ma jiro ciyaaryahan Barcelona season ka lug lahaansho badan dhalisi caawin Champions ninka la yiraahdo Rush Englishmanka ninka halis badan Champions ma joogo dhalisi caawin marka la isku daro season kan 7 gool ay ku leeyahay season waxa jirtay lagu laatan walaatiiko meynad uu siiyay 6 gool oo inuu ku luglaasho marka Rush asaga meesha aqligiisu ku jooga kulay Barcelona waxaan lahaa way wuu cajab geliyay macalinkana wata ciyaaryahanka Janis inuu siiyo ayaa Janis mar qarsiya marba ma khadiyo marka in Barca ciis doonta arkaya goolahayahoodina dhankan iyo Giron buu maray sharciga marka la liig wax weeyaan ciyaari Ingiriiska oo kale wax weeyaan Barcelona iyo Giron waxay ku heshiiyeen maadaama ciyaaryahanku amaah uu ku yahay Giron igama horkeeni kartaan bay yiraahdeen Stergan libaaxay ugu noqonaa dhow ilmay gool meel ka marsiyaan ayaan waaynayaa ay isleeyihiin ayuu madaxweynuhu Barca leeyahay marka kulanka hadii lacala ay tiraado Giron ninka amaahda ku ciyaaraya iyagu lagu siiyay Barca inay rabaan ka hor keenaan waxa heshiiskiisa lagu daray 300 oo kun ka badan bay dhiibayaan hadii ay yiraahdaan Girona Barca ka horgeynina Stergan 300 kun diyaarsada la rimina oo nasiinaysaan marka Barcelona mar rabaan ninkan uu ka hor yimaado marka hadii Giron is dhaado ka hor keena Stergan Barcelonadiisi waxa heshiiskiisa lagu daray qodob sheegaya in ay dhiibayaan wax ka badan 300 oo kun in dhiibi doonaan oo Barcelona siinayo marka Barcelona meesha taa faa'iido ka sameeyay rabaan hadii nimankan ku soo adkaystaan in ninkan la keeno ay ka ciyaarsiyo ka hor keenaan marka Barcelona badbaadi habeenko taas waa taa Liverpool markuu Salah soo laabtay caawa horay ayaa laga ciyaarsiiyay wana loo dhameeyay ciyaarta laakiin Jariski ugu dambeeyay Gagbo waa xaside Maxamed ugu cimaamada bay ahayd ma ugu cimaamadin asaabatiiskaysa ayaantano waxa leeyahay war kama Diaz lagu bedelay Allah Busquets Diaz buu gali karaa Allah 3 gool cid ku badiyeen Szoboszlai another Brazilian fantastic buu dhaliyay aan gool ba iska dhaliyeen Gagba mid kale ku daray marka Maxamed waqti dheer ma u qaadanba soo laabtay horba ka ciyaaray habeenko marka tababaraha kooxda Liverpool pressure ba saaran Saudi waa tilayri Alonso lagu bedelay Alonso waxa la ri shaqada tababarnimo degdeg uma soo laabanayo illa aan ka ahayn in Liverpool ay yiraahdaan warkaalay nabad baadi Liverpool ixtiraama leh runtii laakiin asaga xaga soo socdo ayuu sugayaa marka tababaraha taa waa la weydiiyay ka xanaaq su'aasha ah in Alonso lagu bedelayo wuxuu yiri anigu waxaan ahay wuri ninka 18 bilood Liverpool uu joogay Premier League soo guuleystay baa la wada jabi kartaa wuri macnaha hal si sama aniga oo iga jabtay ma aniga laygu laadaya yiri moogtahay mid kale Saudi ma hadal weyn buu ku hadlay wuxuu ka xanaaqay dadka dhahaya waa inaad isku muujisaa Liverpool inaad u qalantay in kale wuxuu leeyahay hadii aad horyaal u qaado koox kaliya 2 jeer baa horyaal ku guuleystay 30 san la soo dhaafay oo haddana aad ka maqasho waxa u baahan tahay inaad ismuujiso miyaan hore isu muujin buu leeyahay runtii 30 san la soo dhaafayaan horyaalkii labaad aad ku guuleysteen buu leeyahay aniga idin qaaday marka niman aan horyaal ku guuleysan jirin baad ahaydeen yaan idin imaaday horyaal idin qaaday marka ninkan uu ka yaaban yahay in reer Liverpool ay yiraahdaan dadka ku hareeraysan Liverpool ay yiraahdaan waan isku muujisaa Liverpool war waxa tiin bur niman horyaal ma qaadaan ah halna kolob baa idin dafay hal ana idin ku daray 30 san niman laba horyaal qaaday baa tiin halka umada kale iska arursanaya maalin kasta markaas waxay leeyihiin Liverpool isku caday war goorna Liverpool isku caday wuri macna waxaan imaado koox aan horyaal ku guuleysan karin deetan u qaaday ma ismuujis kala yidhi man amal ninkan ay ka tigil raasna waa iska ciyaal waxa uu iska noqday ciyaal foodeerayaashii maalmo waxa weey 6 bilood soo dhaaf 5 jarin kala duwan baa la sameystay October qaabkaas loo jartay September alaabtan kale oo bolondada ah August mid kale lagu turtay December alaabtas kale lagu turtay January-na mid kaas kale lagu soo turtay runtii wayna yarmid isku mashquulsan laakiin Liverpool ambitin waqti dheer bay ku jiraan habal lagu ooriyay taageerada ku ooriyaan laakiin Liverpool ayaantan hadaysan badinin laga badin karo taas waa taa Chelsea caawa muskayzada fakiyay 78 daqiiqo Master Okialo wareey waa socda Master Okiale uu badinaya ciyaaraha ya Okialo uu guuleystay caawa tababaraha Chelsea David Luiz ay ka badiyeen oo teamkan hore ugu soo ciyaari jiray kooxdan ka tirsanaa mid kalena ogow Chelsea waxay isleeyihiin sanadkan armuye sanadka Champions ku guuleysan lahaydeen marka loo eego taariikhda 2 Senegal ayaa ku guuleystay Africa of Nation imikuna dib ay ugu guuleysteen 2
laba kulati kow Nigeria ayaa usoo bixi weysay World Cup 2006 sidoo kale umayna soo bixin 2021 Chelsea ayaa macallin magacaawday January waliba imikuna Chelsea ayaa macallin kala magacaawday 2006 January oo cusub 2021 Jamlig waxaa ku guuleystay Blau 2006 maxaa dhici doona yaa la isweydiinaya runtii oo Chelsea sanadkeedii baa la arkaya leeyahay runtii ha ka shakin marna Blue yaa waxa weeyaan sad ugu shakanaysaan bay idin soo geli jirtay waxaan ka hadlaynaa kooxda ku guuleystay every cup maqaarka laga dhiga waana world champion Newcastle qudheeda habeen ku badiyeen waliba 6 gool ayuu dhaliyay 7 ciyaar Jamlig season kan ninka la yiraahdo Anthony Gordon in kasto maalin lahaa sanad ayuu ku qaadatay gool inuu ka dhaliyo Premier League midda kale sanad ayuu gool la'aan ahaaba cunahu imikuna wuxuu bareejiyay koorkii Alan Shearer taariikhda uu ka sameeyay Jamlig goolasha ugu badan Newcastle player 6 gool dhaliyay 2002 iyo 3 inta kaliya ma Aweza ayaa gool ku turtay ilaahuna mahad celiyay wana goolkiis ugu horeeyay ever Jamlig taas baana ka dhigan Newcastle yaabigu Yonis Weza waxa uu noqday kongeeskii ugu horeeyay taariikhda ee Jamlig gool ka dhaliya koox Premier League tan iyo laacibkii hore isla Newcastle luwa istalo habeenka Simeone igaarkiisii waxay tageen macnaha ku soo ciyaarayeen dhankan iyo Galatasaray oo waxay habeenka jireen wadanka Turkiga way jireen runtii daacadina ka weyn bay soo gashteen inkastoo daro ay soo qaateen laakiin garoonkii colaadeed ayuu wiilka caawa ina Simeone ku dhaliyay gool hayeshe waa laga diidayo tutu 1-1 ay galeen nimankaas marka Galatasaray isbuucdan waxay la ciyaari doonaan ama kulanka xigay Jamlig waxay la ciyaari doonaan Manchester City oo ay ku dhacday saacadii ugu dambeysay ceeb ahayd 19 sano kadib in koox Norwegiana Jamlig ay ka badiso ama Jamlig ay badiyaan inay noqoto kooxdan Bodø/Glimt yaani 19 sano la soo dhaafay koox ma jirto oo Norwegiano xataa kulan Jamlig badisay ilaa ilmahan ay yimaadeen oo Man City garaaceen sanad Norway u soo baxday World Cup-ka sidoo kalena koox Norway Jamlig ay adkaatay inta uu qayb ayuu ka ahalan maxay leeyahay markii Norway u soo bixay xulku World Cup-ku isagu u ciyaaray ciyaartana asaga ciyaaray laakiin waa laga badiyay marka 19 sano team Norway Jamlig badin Manchester City ka badiyeen Pep Guardiola wuxuu yiri wax walba si xun bay ku socdaan yaani wuxuu yiri ma anahi sidii aanu ahayn waqtidii la soo dhaafay wuxuuna sheegay in 2025 ilaa الآن Manchester City aanu ahayn tii la yaqaanay marka wuxuu yiri wax walba ma wanaagsana xataa ciyaartooyga Man City taageerash weeral galiyeen Bernardo Silva Ruben Dias Erling Haaland iyo Rodri raga ugu sareeyay kabtanimada kooxda Manchester City waxay taageeraasha u sheegeen waxa kaliya idin sameyn karna wax kala ma aanay yiraahdeen 400 taageero Man City wax u safreen dhankaas iyo Norway qabowgaas iyo natiijo xumadaas waxay yiraahdeen waxaan ka bedeli karna malaha laakiin hal mid baa idin sameyn karna yiraahdeen ceebtin ugu dhacday waxaan ka bedeli karna malaha laakiin tigidhadii lacagtii kaga baxday baan dib idinku celinayna dad badan aad bay u amaaneen ciyaartooyga Man City inay leeyihiin mishaarkeena ka bixinayna tigidhadii ka baxay inaga jeebkeena ka dhiibeyna uma 400 fans ba waxay aadeen Norway dhaxanta meesha ku soo dishay ilmo yariisa ka soo yaabsaday iyagoo niyad xun bay soo laabteen waxay yiraahdeen anaga mishaarkeeni tigidkiini ciyaartaad ka dhiibteen idin celinayna runtii marka way ku faanayaan hogaaminimadooda marka waa raaligelin lacagtooda in dib loogu celiyo taas waa ta halaan Norway ku labashidiisii inkastoo dhalintu yaryar ee halkaas ay la shoogeen haddana guuldaro ka soo qaatay marka waxa weeyaan Arsenal laakiin waxa lagu leeyahay guusha ay ka gaartay Inter Milan Jamlig Arsenal waxay siinaysaa faa'iido faa'iido weyn bay siinaysaa faa'iidadaas ma ahan kaliya inay hadda kadib home-kooda ku ciyaarayaan lugta labaad sidoo kale Arsenal waxay tan u siinaysaa runtii kalsooni badan kulamada knock-out-ka koox walba lagu aadiyo Arsenal waxay dareemi doontaa inay lugta marsiin karto Arsenal Inter Milan Inter Zaid waa nimanka Jamlig sanadka Barcelona soo reewa inay San Siro ku soo badeen Arsenal waxay dareemayaan muruqooda cid kale inaan ulahayn waan Saudi wati lagu murmay Manchester City 2008 ee Ronaldo iyo Scholes iyo Giggs iyo Rooney iyo Ferdinand iyo Vidic iyo ciyaarayeen Van der Sar iyo laba bardhigay Manchester Arsenal shatan kuwaas oo laba leey ku guuleystay kaas Jamlig horyal ku guuleystay Arsenalna waa arki doon haday mid sameyn doonaan marka Arsenal koox walbo ka hortimaada Jamlig waxa uu leeyahay runtii wareega knock-out-yada soo socda in lugta mari karta bay arkayaan marka taas waa taa laakiin wali waxa ka yaabinaya Arteta inaan yar
jamligu wuxuu ka dhigayo waa waxayna xataa ka dhigin Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Ancelotti, Enrique, Van Gaal iyo Tuchel. maxaa yeelay waxa lagu leeyahay isagoo inaan da'yara ninka kan kooxdan jacbursaday soo hagaajistay waxaa laga hadlayaa tan 1992 laga hadlayaa ma jiro ninka kan macalin kaga fiican bergame dhibcaha ciyaaraha laga helo jamliga laga qaato bergame dhibcaha jamliga la soo hoyo waxa uu ka fiican yahay fiiri Guardiola iyo Rijkaard iyo Zidane iyo Hans Felix iyo Haykens laba German baa ka fiican ninka kan rutiyo marka tababareel guuleys jamligu ayuu xataa kaga fiican yahay bergame jamliga dhibcaha laga helayo Yogeres qudhiisu hadda waxa weeyaan kabta la gashtay ragla challenge uu dareemaya waninka hadda fiiri laba gool maalin soo dhaliyay qolyahan Atletico Chelsea ka dhaliyay ku caawiyay Inter mataqana ka dhaliyay waxay u muuqataa in hadda kulamada weyn ku wacdareeniyo inta kaliya Arsenal waxay kooxda ugu horeysay jamliga xaqiijistay wareegga 16 caawana München ayaa midaas muujisay oo ina waxay noqotay kooxdii labaad ee xaqiijistay wareegga 16 in uu soo baxeen Kane ayaa haddana habeenka mar kale goolasho gaaray Juventus caawa iyagu qudhoodu laba gool bay ku badiyeen mid kamid ah Mareykanyawiga imkani baa dhaliyay runtii taawata Cristiano Ronaldo 40 gool buu habeenku jiraa inuu gaaro goolkiisa kumaad waayisa laba gool Nasr ku badiyeen wulina ay bush gareynayeen Hilal horyaalka Sacuudiga waxa weeyaan ma caawa adigu hal gool buu leeyahay Cristiano waxa weeyaan 60 wuxuu marayaa 960 gool buu marayaa 40 gool baa ugu harsan kunka gool maro marka kunow walla kunu waa lagu soo hayaa ya 25 gool ayuu season kan siiyay Ronaldo teamkiisa dhalis iyo caawino marka waka waana Ronaldo oo nin wax laga barta ah gudaha garoonka iyo banaanka gudaha garoonka wuxuu ku yahay dilaa shabaqiisa saas u gaaraya oo baldoser uu ku yahay shabaq u gaaraya banaankan wuxuu ku yahay nin dadka ixtiraamo discipline leh Di Maria ka sheekeynay sheeko waxa arkay stories ugu dambeeyeen arkay wuxuu yiri Di Maria berigan Madrid joogay maalin bay dhalshideeda ku beegneed ayayna badan Madrid baan balmiyay Cristiano Ronaldo qudhiisata waan balmiyay marka ismaan lahayn Ronaldo ku imaanaya ismaan lahayn buuri waxaan dhahay Ronaldo fariin waxa qoray Ronaldo dhalashadeedii way gurigan ku qabsanaya didi imaan kartid ya aan irubicda macnaha ma filayn Ronaldo inuu iimaan ilaa qolyaha kale iimaan waa ogaa urubicda يعني رونالدو متوانين بلاير وين بعد ما في لي سنو كو ايمانيو لكن رونالدو فرينو يوسع علي ولا اوكي waa ku iimaanaya waa kala soo qayb galaya gurigu yimaaday saaxiibadii dhan Madrid oo meesha ku wada cabay yuri bahashi khamriga ahayd asaga in kastoon uu xataa bahashu cabayn buuri uu ixtiraamay meesha iska fadhiyay ya asaga khamri iyo taatooba laguma yimaado khamri abi buu dilay marka saas daraad uu ka fogaada marka wuxuu yiri dhinacuu naga soo fariistay anagu waxaan iska cabayn asaga ma cabayn buuri meesha iska fariistay korkaabun waa ixtiraamayo يعني inuu naga qaso naga jiirbu yani macnaha uu diiday oo iska fiirsanay wuu leeyahay runtii wuxuu leeyahay ninkaas gudaha garoonkana waa nin ku khatarsan buu leeyahay runtii banaankana waa nin kale inaba aan caadeen ku yani shakhsiyan nin aad u fiican buu ku tilmaamay marka taas waa